xoog ku qabsaday dhulka Yamanta waqooyi ee Cadani xarunta u tahay sanadkii 1839 si ay u noqoto saldhig u fududeeya safarada maraakiibtiisa u socota ama ka soo noqonaysa dalka Hindiya oo isna ay gumaysan jireen isla xilliga. Waxa Ingiriisku mar walba ka feejignaa in dhinaca kale ee badda cas oo ku beegan dhulka Soomaaliya ay soo degto dawlad awood leh oo khatar gelin karta maraakiibta Ingiriiska ee ku safarta badda cas. sababihii Ingiriiska ku qasabtay waqooyiga Soomaaliya wuxuu ku tilmaamay inuu hilib uga helo ciidamadiisa joogay Cadan oo waqooyiga Soomaaliya waxa uu Ingiriisku yaqiin suuqii hilibka ee kawaanka Cadan. dareenka oo ku taagan Ingiriiska ayaa masaaridu si lama filaan ah ugu guurtay dhammaan goobihii ka fadhiday dalka Soomaaliya. Ingiriiska oo arinta ka faa'iideysanaya waxa uu durbadii warqad u diray Cusmaaniyiintii Turkiga waxa uu u sheegay in laba beelood oo Soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan nawaaxiga degmada Saylac loona baahan yahay in la kala celiyo waxna laga qabto. taariikhyahanadu waxay qeexaan in danaha Ingiriisku ka lahaa xeebaha Soomaaliya sabab oo ahayd ilaalinta nabadgelyada maraakiibtiisa ku safarta badda cas ee isaga kala gooshta dalalka Yemen iyo Hindiya oo gumaysan jiray. bilqaysiga loo geysan jiray maraakiibta Ingiriiska ee ku burburta badda Soomaaliya ayaa ku kaliftay inuu heshiis la galay qabaa'ilka Soomaalida si ay u badbaadiyaan baxarada iyo xamuulka saaran maraakiibta badda cas ku qarqanta. Ingiriiskana waxa uu heshiiskii ugu horeeyay galay ee noocaas oo kale ah sanadkii 1827 bishii Maad ee sanadkii 1885 ayaa Masar ka xamaama aruusatay dhammaan meelihii ay ka joogtay geeyiga Soomaaliya taasi oo sabab looga dhigay kacdoonkii Mahdiga Suudaan iyo ciidamadiisii daraawiishta oo looga cabsaday inay duulaan ku qaadaan dalka Masar. ka bixitaankii Harar waxa uu ku soo beegmay xilli dawladaha reer Yurub ay ku mashquulsanaayeen kala qaybsiga qaaradda Afrika. Ingiriiska ayaa ahaa midka sida weyn u daneeya geeska Afrika iyo gacanka cadmeed maxaa yeelay dawlad xoog leh oo dhinaca kale ee marinka Baabul Mandab soo degtaa waxa ay si sahlan qalqal u gali kartay safarada maraakiibta Ingiriiska oo u kala gooshi jiray Hindiya iyo mustacmaradii kale. soo bilaabay Luulyo 1884 Ingiriisku wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed si uu u helo qayl saldhig sharci looga dhigo qabsashada dhulka Soomaaliya iyo xeebaha Soomaaliyeed. wuxuu ka noqday diidmadii hore ee ku aadanay jiritaanka maamulka Turkiga ee ka jiray Saylac ilaa Ras Xanfuun iyadoo loo geysiyay Turkiga in Ingiriisku diyaar u yahay aqoonsiga awoodda maamul ee uu ku leeyahay xeebaha geeska Afrika. waa haddii Turkiga tilaabo iyo maamul muuqda ku yeesho arrigaas kolka Masar isaga baxdo isla markaana ballan qaado aysan deegaankaasi dawlad kale ku wareejinayn. muddo yar kadib Ingiriisku wuxuu ogeeyay Turkiga inuu jiro war sheegay in colaad ay ka dhex ogan tahay beelaha Soomaalida loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto haddii kalena Ingiriisku ciidamo xiisada aloosan damiyo u dirayo. sidaas ayaan Ingiriisku ugu soo lug darsaday ama ugu soo lug fidsaday guud ahaan geeyiga Soomaaliya intii u dhaxaysay 1884 ilaa 1885. Ingiriisku waxa uu ambaqaaday heshiisyo uu la galay beelaha gobolada waqooyi 20 Luulyo 1887 dawladaha reer Yurub waxaa si rasmi ah loo geysiyay iyadoo la cuskanayo xeerka guud iyo axdiga loo aybiyay shirka Berlin in maamul Ingiriis laga sameeyay xeebaha Soomaalida laga bilaabo Djibouti ilaa xeebta bariga oo ku jirta magaalada Bandar Qaasim oo juqraafi ahaan dhacda dhigta 49aad.